aniga u mahad celinayaa mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo dadka kale oo halkan jooga wasiirada waxaan rabaa marka ugu horeysa horta inaan idinkugu hambaliyeeyo inaad leedihiin xikmad aad shaqo ku bilowdeen ayna ku sii socoto waa awoodeen inaad sanad qabataan kadibna lagu kala tago inaad sanadkii hore qabateen oo kii ka horeeyay qabateen kanna aad qabateen waxaa ka muuqata in waxaad qabanaysaan ay dhab idinka tahay waan idinkugu hambaliyeenayaa in dhalinyaro badan gabdho iyo wiilal magaalada Muqdisho iyo dalka ka kala yimid ay isugu yimaadeen oo boqolaal ah si ay uga qayb qaataan caawana la soo xiraayo shirweynahan qaran saacado badan halkan ay fadhiyeen iyagoo daalan oo man gaajaysan waxay tusinaysaa in raashinkooda iyo biyahooda ay ahaayeen inay fahmaan macnaha ay leedahay hoggaan iyo hal abuur idinkuna waa ku mahadsantihiin dawladnimadu macnaheedu waxa ay tahay inaad ogtahay waxa aad rabto meesha aad u socoto sida aad ku tagi lahayd daacad ay ka tahay aad u soo kacdo waqti aad geliso waxaan rabaa marka dhalinyaroy dalkan hadda aan joogno xoogga uu haysto waa idinka maskaxda uu haysto waa idinka dhaqaalaha uu haysto waa idinka waxa uu ku faanayo ama cidda uu la tartamayo oo raba adduunyada inuu la tartamo waa idinka idinkuna waxa laga yaabaa wali dhaqankiinu inuu ku mashquulsan yahay maanta Facebook maxaa lagu soo qoray siyaasi hebel muxuu yiri qabiil hebel ku duulay qarnigii 21aad ayaa lagu jiraa qarnigii waxa lagu jiraa aadan noolaan karin haddii aadan aqoon lahayn aad u baahan tahay si aad u noolaato inaad xirfad leedahay si aqoonta dadka Soomaaliyeed loo dhiso aan ula tartanno bulshada adduunka waa inaan leenahay iskuulo iyo jaamacado soo saara dad Soomaaliyeed oo aan ahayn iskuulo iyo jaamacado laga soo baxo laakiin kuwa ka soo baxa ay la cilmiyiin ama ka cilmi badan yihiin kuwa Kenya ama Jarmalka ama Faransiiska ka soo baxa macnaheedu waxay tahay inaan wadankeena ka shaqeyno si aan uga shaqeyno marka waa inaan wadanka dhaqaalihiisa wax ka qabanaa oo musuqmaasuqa la dagaalnaa oo kobcinaa dhaqaalaha oo adduunyada ilaheeda dhaqaaluhu ay dib noo aaminaan si dibna la kugu aamino waa inaan xanuun marnaa xanuunka cidda maraysa oo adkaysanaysa waa cidda rabta inay mustaqbal yeelato cidda mustaqbalka lehna waa idinka waa idin mahad celinayaa inaad aaminteen inaad dalkiina leedihiin waa idinku dhaliilayaa weli inaanay muuqan shaqo dhab ah oo iga dhaadhicisa inaad aqbasheen inaad qabsatiin hoggaanka dalkiina weli waxaad u dhaqmaysaan qof gurigooda jooga oo marti ka ah weli waxaad u dhaqmaysaan inaad xaaladda mustaqbalka dhexdhexaad ka tihiin haddii aad u dhaqmayso inaad mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo carruurtaada dhexdhexaad ka tahay macnaheedu waxay tahay weli baadan fahmin wixii aan ka hadalnay sanadka hore marka haddaad rabtaan sanadka dambe haddii Ilaahay yiraahdo inaad isoo casuumtaan waa inaad igu soo casuumtaan wax ka weyn ra'iisul wasaare oo sanadkii hore hadalkaada waa maqalnay inaan anagu milkiilayaasha nahay caddeyn baan rabaa inaad tustaan sanadka soo socda haddii ay sidaas tahay marka waxaa muhiim ah inaan isla garanno waxyaabo yaryar oo kala duwan kow haddii aan rabno inaan wax ka bedelno dalka xaaladda uu ku sugan yahay waxaan u baahannahay inaan wax ka bedelno xaaladda ay dadku ku sugan yihiin soo islama garan intaas si xaaladda dadku ay ku sugan yihiin aan wax uga bedelno waa inaan isla fahamnaa xaaladda dadku ay ku sugan yihiin sida ay tahay
سيان سولا فهمنو وأنا فهمنا أما أنك فكرنا سببتك كنتي دتكو إني جلان حالة دا يكسوجينه وعدو بانتين مركا فردان جامعة ده مركا دو ديسان إلى كفكرتان محان كمتيسناي هدي عن هاي ومدة الصوماليات إن كجرنا حالة ده هذا عن كجرنا لكن كهذا عن لا نهاي وعن أفهم سن هاي دولة لماذا سيدا ونا نجار نقضي حالة نوعية أيام نسوق جلس مركب عربنا إن أنا قانو دل وليبا ومد وليبا وحيالتا قاب رقمات أي كنا ولا تو دولة لماذا يدنا أي كهرو مريسو هدي قاب رقمات كاس دولة لماذا اللي قلنا سايا مركب قاب فكر كاسي ونجار نقضو قاب فكر خلدان waxaa dhibaato noqonaysa inaan gaarno meesha aan rabno inaan gaarno su'aalo adag inaan isweydiino waayo marka su'aalo adag inaan isweydiino oo ay tahay maxaa keenay dalka nagu dhagan oo Kenya inuu taagan yahay meesha uu taagan yahay maxaa keenay shalayto in madaxweynaheena loogu yeeray dalka Djibouti asaga iyo dhammaan madaxweynayaasha geeska Afrika oo dalka walaalaheena oo sharafta leh Djibouti ay soo bandhigeen inay billions of dollars ay geliyeen wax la yiraahdo free zone oo ay rabeen inay tusaan madaxweynayaasha Afrika oo Paul Kagame ugu horeeyay madaxweynaheena uu ku jiray madaxweynaha Suudaan uu ku jiray wasaaraha Itoobiya ku jiray maxaa keenay in dalalka deriskeena ah ay cilmi dhoofinayaan ma aha badeeco inay dadkooda intay wax baraan ay dunida u dhoofinayaan maxaa keena arday walba ay soo saaraan inuu kuweena ka quality badan yahay shaqaalaha ay haystaan inay kuweena dhaamaan dhaqaalahoodu ay ku kunjibaarmaan ama ku balaayin jibaarmaan iyadoo xoolaha ay haystaan annaga kuwa aan haysan ay ka yar yihiin maxaa keenay in qof walba dawladaha dariska markuu diyaarad raaco oo dunida tagaayo loola dhaqmo si idinka duwan soo idinka sida leeyna dhaqmo annaga sida noola dhaqmo ay ka duwan tahay kuwa kale maxaa keenay in dhalinyaradeenu ay doomaha raacaan ay badda ku dhacaan ama aan ka soo daldalno jeelash in laga soo celiyo kuwooduna aanay meel aadin intooda badan ay joogaan su'aalaha la rabo in la isweydiiyo xaaladda aan idin sheegayo oo aad rabtaan inaad isweydiisaan haddaad rabtaan kuwii mustaqbalka dalkan xukumi lahaa inaad isweydiisaan ويمو دالك غوديسا maxaa keenay inaan dhexdhexaad ka nahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed maxaa keenay in inteena badan aan qof caadi ah noqono qof caadi ma noqon kartin qof caadi ah waxa noqon kara qof dalkiisa hore u maray qof caadi ah waxay tahay qof subax soo kaca soo shaqaysta seexda yaad ku haleynaysaa dalka intiisa kale hadaad qof caadi ah noqoto maxaa keenay inaan aqbalno inaan fiirsano in caruurteena ama hooyooyinkeena ama aabaheen jidadka markii lagu laayo kaliya aan iraado caaw qof baa lagu dilay wadada Makka al-Mukarrama ama Kaaraan qof ma aha hooyo Soomaaliyeed oo 4 caruur ah ayaa la dilay wiil jaamacad ka soo baxay oo 20 ama 30 ama 40 sano haduu noolaa lahay dalkan dhisi lahaa ayaa la dilay saamiyihii Soomaaliya ugu horeyn lahaa cirka tagi lahaa ayaa la dilay dhakhtarkii mustaqbalka Soomaaliya ugu wanaagsanaan lahaa ayaa la dilay maxaan sidaas u dhihi weyn maxaan u aqbalnaa markaan u jeedno dawladnimadeena oo dariiq sax ah ku socoto qolayar inay ka leexinayso maxaan u aqbalnaa idinku inaad tihiin qoladii loo isticmaali lahaa inay leexiso idinku
intaad ahaan lahaydeen milkiilayaashii qaranka maalinba waxaa la idin keenaa shay laga hadlo shaygaasaad wax ku darsataan waxaad qayb ka noqoteen dhaqanka fadhi ku dirirka oo aan ahayn dhaqanka shaqeeya waxaad qayb ka tihiin dhaqankii la soo dhaafay oo la rabo in la bedelo dawladnimadu waxay tahay waxaanaad soo bandhigteen inaad ka dhabaysaan dawladnimadu waxay tahay su'aalaha aad adagoon isweydiinayno inaad ka jawaabtaan dawladnimadu waxay tahay gudoomiye ku-xigeenku sida uu sheegay waxaan la dhisay idinkaa la idiin dhisay aniga iyo isaga iyo Khadiijo waan ka soconnaa haddii lagu ciyaaraayo idinkaa la idinkaga ciyaaraya hadday hagaagaan idinkay idiin hagaagayaan hadafka dawladnimada marka haddii aad ka shaqaynaysaan waa la idin tilmaamaya waa fududya kow waxay tahay in cidda milkiilayaasha dalka ka ah codkooda taladooda ay noqoto mid lagu khasban yahay in la dhageysto si loo dhageysto waa in milkiilayaashu ay fahmaan marka hore inay milkiilayaal yihiin markay fahmaan kadibna sida ay lahaanshaha uga dhabayn lahaayeen inay fahmaan macnaheedu waxay tahay waa inaad u abaabulan tihiin si qarannimo ah waa inaad u abaabulan tihiin si mustaqbalka ku salaysan waa inaad u abaabulan tihiin si aad madaxweyne farmaajo u dhihi kartaan dariiqa dalka aad ku hogaaminayso waa khalada bidix u leexi waa inaad abaabulan tihiin qaab aad wasiirada dawladda ku jira aad ula xisaabtami kartaan si halkaas la soo gaaro marka waxaan idinku caawinaynaa inaan waddankan u bedelno in qabiilka looga guuro asxaab siyaasadeed in xisbiye la sameeyo in sharci doorasho la sameeyo oo codka idinku aad dhiibataan waxaan ka shaqaynaynaa in awooddii gacanta xoogaa yar ay ku haysatay idinka la idin soo celiyo laakiin waa xanuun ogaada kuwa hadda talada gacanta ku haysta ma yeelayaan idinka idin siiyaan miyaa u malaynaysaan in macna daro la idinkugu keenayo maya waa inaa hurdada ka kacdaan oo aad dawladnimo isu abaabushaan muxuu idinkaga dhintay allah u naxariistee wiilka dhalinyarada ee degmada Wardhigley u qaybinayay dadka masaakiinta Afrika haddii aadan qiimeynaynin noloshiina maxaa dhalinyaro ka tihiin haddii wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalinba la dilaayo iyagoo dawladnimo u adeegaya aad ka soo qaadaan qof dhintay aadan u la xisaabtamaynin haliyay idinka baxay sidee baad rabtaan inaad dalka idinku gacanta ugu dhigtaan waan qabiilka lagu bedelaa asxaab siyaasadeed waa in codadka ay bixiyaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa in dalkoo dhan laga codeeyaa waa in dawlad ay xakunto shacabka Soomaaliyeed la keenaa waa in madaxda mustaqbalku ay ku yimaadaan mustaqbalka rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waa in idinku awoodda ay yeelataan si aad u yeelataanna inta laga shaqeynayo shaqooyinkaas oo jidkeeda lagu jiro waa inaad hurdada ka toostaan adduunyadu waxay noola dhaqantaa sidii hore si ka duwan meel walbo aan tagno waana la ciseeyaa waxaana loo ciseeyaa inaan ahayn dawlad wax loo yeeriyo nalooma sheego go'aanka ummadda Soomaaliyeed aan u gaarayna annagaa go'aansana go'aanka aan ummadda Soomaaliyeed u gaarayno isgoyska aan marayno marka waxaan rabaa dhalinyaro inaan caawa mar kale idinku soo celiyo ma laga shaqayn karo haddii indhihiinu xiran yihiin ma laga shaqayn karo haddaad tihiin wiilal iyo gabdho caadi ah ma laga shaqayn karo haddii aad tihiin wiilal iyo gabdho dhexdhexaad ka ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ma laga shaqayn karo haddaad tihiin kuwo qola dangaara leh ay Facebook ka hagtaan ma laga shaqayn karo haddii aad leedihiin aragti kooban oo aadan lahaynin aragti fog ma laga shaqayn karo haddaadan fahminina
soddon sana nagu filan inaanay qabyaaladii wax tarayn ma laga shaqayn karo haddii aadan idinku noqonin halyeeyada mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed